Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sababaha dhabta ah ee dhalisa gamuurisana saboolnimadu waa dhaqaalaha siyaasiga ah oo ka shaqeeya in inta ladan dhiigga ka nuugaan inta saboolka ah, dhaqaaluhuna noqdo mid u garbaduuban gumaystaha suuqa una adeega kuwa sayladaha adduunka ku qamaara oo keliya. Hase yeeshee, markii gumaystuhu yimid, dunida maanta loo yaqaan dunida saddexaad ama saboolka ah, wuxuu isku dayay kuna guulaystay inuu dhalanro ku sameeyo nidaamkii dhaqan-dhaqaale ee dadka ku dhaqan dhulkaasi lahaayeen. Habkoodii wax soo saarna wuxuu u beddelay hab kale oo ka turjuma baahidooda suuqyada dibadda. Runtiina, saboolnimada taagan bilowga qarniga 21aad waa mid bilaabatay sannadkii 1492 markii Christopher Columbus saddexdii doomood ku soo xiray jasiirad la deganaa oo ku tiil qaaradda Ameerika oo uu ku tilmaamay inay tahay Firdowsa ama janno dhulka ka jirta. Reer Yurub waxay fursad u heleen inay doomahooda ka daadiyaan rakaabkii siyaasadda ahaa ee gaajadu haysay, dahabkana u oomanaa. Halkaasna waxaa ka bilaabmay waxa loogu yeeray u tartankii dahabka dunida cusub, gaar ahaan markii la soo gaaray qarnigii 18aad. Dalalkii reer Yurub waxay dardar xoog la geliyeen dadaalkii boobka loogu jiray duulaankaasna waxaa ka dhashay in la cirib tiro dadkii ku noolaa qaaradda Ameerika, Waqooyi iyo Koonfur, Australia, New Zealand iyo 10 milyan oo Afrikaan ah oo loo raro sidii xoolihii si ay u falaan beerihii dadkooda la xasuuqay. In Shiinaha lagu qaado dagaalkii afyuunka iyo in dadkii reer Yurub ay deegaano ka samaystaan Afrika iyo Aasiya. Duulaamadaasina waxay ka duulayeen aydiyolojiyad aad u fudud oo nuxurkeedu yahay adduunyadu waa maado, aadamiguna wuxuu adduunyada u joogaa inuu maadadaas quuto oo uu ka helo anfaca iyo macaanka ugu badan. Laakiin dhinaca kale, waxaa la ogyahay in khayraadka adduunyadu ay kooban yihiin. Arrinkaasina wuxuu keenay in la go'aamiyo in awooddu tahay xeerka qura ee lagu kala baxo, iyada oo laga duulayo mabaadi'dii Machiavelli ee ahaa ujeeddadu waxay xalaalaysaa waddada lagu gaarayo. Runtiina way adag tahay in la fahmo xaaladda murugsan ee ka taagan dunida saddexaad maanta haddiise aan raadka mushkiladda dib loo raacin. Guud ahaanse, waxyeelooyinkii iyo hagardaamooyinkii gumaystuhu u geystay dadyowgii uu gumaysan jiray waa kuwo laga dharagsan yahay. Sidaa darteedna halkan uga hadli mayno, maxaa yeelay war la qabo xiise ma leh. Laakiin waxa keliya ee aan isxasuusinaynaa waa in ciidamadii gumaystaha oo kelihii ay baxeen, laakiin gumaystaha siyaasaddiisii dhaqan-dhaqaale ay sidoodii uga shaqaynayaan dunida saddexaad. Arrinkaana waxaa lagu suurayn karaa oraahdii Soomaaliyeed ee ahayd ayax-tag eelna reeb. Waxaana loo baahan yahay in marka aan leenahay dib u dhaca iyo saboolnimada haysata dunida saddexaad, xididadoodu waxay ka soo jeedaan falalkii gumaystuhu geystay, inaan loo fahmin inaan mas-uuliyadda arrinkaas ka leexinayno maamul xumadii madaxda dunida saddexaad ay ku kaceen xilligii gumaysiga ka dambaysay. Laakiin ujeedkayagu waa inaan caddayno in maamul xumada madaxdii dunida saddexaad ay wax ku maamuleen inay ka horaysay oo waddada u xaartay, isla markaasna wehelisay dhaqan xumadii laga dhaxlay gumaystaha. Waxaana xusid mudan in inta badan dalalka dunida saddexaad ay ka jirtay isku filnaan xagga raashinka ah wixii ka horeeyay kontomaadkii qarnigii tegay. Hase yeeshee, wixii ka dambeeyey kontomaadkii sheekadu waa isbeddeshay. Tusaale ahaana, sanooyinkii 1934 ilaa 1936 dalalka dunida saddexaad sannad walba waxay dhoofin jireen 12 milyan oo tan oo qamadi ah oo intiisa badan loo dhoofin jiray dalalka warshadaha leh. Laakiin 1974 dalalka dunida saddexaad waxay soo dhoofsadeen 52 milyan oo tan oo qamadi ah. Sannadkii 1980kiina 100 milyan oo tan ah ayay soo dhoofsadeen. Wixii ka dambeeyeyna tiradu waa sii kordhaysay. Waddanka Mexico oo la sheego inuu asal u yahay galeyduna, maanta galeyda dibadda ayuu ka soo dhoofsadaa isaga oo u hoggaansamaya shuruudaha kuwa galeyda beerta.
haddaba su'aasha u baahan in la isweydiiyaa waxay tahay maxaa keenay kaabka iyo kala dheerida iyo in biyaha lagu gado xaafadda Biyoleyda? Jawaabta oo koobanina waa in la yidhaahdo ha la raadiyo danta dalka ladan. Faylasuufkii caanka ahaa ee Bertrand Russell waxaa laga hayaa inuu yidhi waddamada cusubi waa sidii burcadka waddooyinka gooya oo kale, oo qaarba qaarka kale waxay ku yidhaahdaan kala dooro lacagtaada iyo naftaada. Guud ahaanse labadaba way qaataan. Dalalka horumarayna gaar ahaan Maraykanku waxay gaadhida dantooda u samaysteen hay'ado ka shaqeeya, hay'ado u xil saaran dhinaca dhaqaalaha. Waxa ugu muhiimsan sida Sanduuqa Lacagta Adduunka iyo Bangiga Adduunka. Waxaa lagu sameeyey heshiis ka dhacay shirkii 1944 lagu qabtay meesha lagu dalxiiso ee Bretton Woods oo gobolka New Hampshire ee dalka Maraykanka. Dantii laga lahaana waxay ahayd in sanduuqa lacagta ee IMF ka shaqeeyo deganaanshaha suuqyada lacagta adduunka iyo hawsha bangiga oo ahayd inuu ka qayb qaato dib u dhiska dalalkii Yurub ee dagaalkii labaad ee adduunku burburiyey iyo horumarinta dunida saddexaad. Sida laga garan karo magaciisa, arrinku siduu doono ha ahaadee, markii la soo gaaray bilowgii 80aadkii qarnigii la soo dhaafay, hawsha hay'adahaas inqilaab baa ku dhacay, waxaana loogu yeeray barnaamijka dib u qaabaynta dhaqaalaha oo inta badan dadyowga dunida saddexaad ihi u yaqaaniin barnaamijka burburinta dhaqaalaha. Sanadkii 1973 markii qiimaha saliiddu siyaaday, dalalka reer galbeedku waxay carabta baatroolka leh ka dhaadhiciyeen in dalalkoodu aysan xoolahaas badankooda qaadi karin. Habka ugu wanaagsan ee ay uga faa'iidaysan karaanna ay tahay inay lacagtaas dhigtaan bangiyada reer galbeedka. Dalalkii carabtuna way rumaysteen fikradahaas oo lacagtii ay ku iibsadeen saliidda waxay dhigteen bangiyada reer galbeedka. Dhinaca kale, dalalkii reer galbeedku waxay ka shaqeeyeen sidii doolarada baatroolka ay dalalkii dunida saddexaad ee baatroolku ku qaaliyoobay uga iibin lahaayeen, iyaga oo ku andacoonaya in hawsha horumarinta ay lafdhabar u tahay in raasamaal la sameeyo. Waddooyinka raasumaalka laga helana ay ugu sahlan tahay qaadashada amaahda iyo maalgashiga iyo ajnabiga. Waxayna ku guulaysteen inay dalalkaas ka dhaadhiciyaan inay diyaar u leeyihiin lacag dayn ah inta ay rabaan. Mas-uuliyiintii dunida saddexaadna si indhahabeennimo ah ayay ugu dhaceen dabankii loo dhigay, iyaga oo u qaatay in calaamaddu daynta bixiyaan. Mas-uuliyiintii dhaqaaluhuna waxay bilaabeen inay ku faanaan in ay dibadda dayn ka heleen. Dayntaana waxaa loo arkay khayr iyo barako, maxaa yeelay miisaaniyaddu isma dhimayso inta ay xilka hayaan. Waxaana aad loo rumaystay in dayntu deeqda la mid tahay, ayna ceeb tahay in la diido. Waxaana la istusay in waqtiga bixinteedu uu fog yahay, iyada oo ay dhici karto in mas-uuliyiinta dunida saddexaad ay ka duulayeen hantida la soo daynsaday intii madaxdu dib u dhigatay. Bangiyada reer galbeedka ma ahana intii kale, waxaa la geliyey mashaariic aan si fiican loo darsin, faa'iidadooduna yarayd, balse laga yaabo inay faa'iido u lahaayeen madaxdii daynta soo qaaday, kuwii mashruuca fulinayey iyo khubaradii ajnabiga ahayd ee la talinayey. Lacagta la soo daynsadayna waxay ahayd mid heerka dulsaarkeedu hooseeyo markii la soo daynsanayey, laakiin dhowr sanno gudahood ayaa heerka dulsaarku kor ugu kacay oo halkii uu ka ahaa 6% wuxuu gaaray 18%. Dalka Maraykanka ayaa kaalinta ugu weyn ka qaatay kordhinta heerka dulsaarka, isaga oo ku doodaya inuu kula dagaalamayo sicir bararka kuna ilaalinayo qiimaha doolarkiisa. Arrinkaas oo keenay in dayntu si xad dhaaf ah kor ugu kacdo. Tusaale ahaan, daynta lagu leeyahay Afrika sanadkii 1990 waxay ahayd labalaab tii lagu lahaa sanadkii 1980. Warjiraaba cakaaruu imane markii la soo gaaray sanadkii 1980 ayaa hal mar dhammaan dalalkii dunida saddexaad ay saamaysay culayskii dayntu, waxaana beenowday in calaamadu dayntu bixiyaan. Waxaana dalalkaas u bilowday 10 sano oo qaramada midoobay
ugu yeertay kuwii dhumay sanadkii 1989kiina Rachel Jolie oo ahaa ku-xigeenkii maamulaha sanduuqa daryeelka ubadka ee qaramada midoobay qaybteeda UNICEF wuxuu sheegay in dad ka badan 500 oo ruuxi ay sanadkaas gaajo u dhinteen sababtuna ay tahay deymaha lagu leeyahay dunida saddexaad. UNICEF-na iyada oo ka hadlaysa dhibaatada la soo gudboonaatay sanooyinkii 80aadkii ubadka saboolka ah ee dunida saddexaad waxay tiri madaxweynaha Tansaaniya Julius Nyerere wuxuu muddo 3 sano laga joogo isweydiiyey ma waajib bay nagu tahay inaan ubadkayaga gaajo u dilno si aan deynta u bixino. su'aashaasna hadda ayaa si dhab ah looga jawaabay. jawaabtuna waxay noqotay haa, saddexdaa sano gudahood 100,000 kun oo ubadka dalalka soo koraya ah ayaa waayay naftoodii si ay u bixiyaan deynta lagu leeyahay dalkooda. malaayiin kalena waxay bixiyeen dulsaarka iyaga oo nafaqo xumo ku ridaya caqligooda iyo jirkooda. mushkiladda deyntuna waxay hay'adaha Bretton Woods fursad qaali ah u siisay in sida ay rabaan u maamulaan dhaqaalaha dalalka saboolka ah. kadibna markii mas'uuliyiintii dalalkaas laga dhaadhiciyey in sida qura ee ay kuraasta ku ilaashan karaan ay tahay inay u dhaganuglaadaan awaamiirta hay'adaha Britain oo fulinaya danaha dalalka horumaray iyo shirkadaha qaaradda isaga goosha oo tiradooda lagu qiyaasay 37 kun oo shirkadood iyo laamahooda oo gaaraya 200 oo laamood waxay gacanta ku hayaan oo maamulaan 75% badeecadaha suuqyada adduunka la isku dhaafsado. durbadiiba hay'adaha Bretton Woods waxay la yimaadeen falsafad ah in haddii dalalka saboolka ahi ay rabaan in ay deynta lagu leeyahay iska bixiyaan ay lagama maarmaan tahay inay beeraan abuurka lacagta adag lagu iibiyo sida tubaakada, bunka, shaaha, kakawga, suufka, lowska, ubaxa iyo qaar kale ayna dibadda u dhoofiyaan. dalalka saboolka ahina way fuliyeen siyaasaddaas waxaase ka hor timid dhibaato ah in qiimaha badeecadooda lagu jabiyey suuqyada adduunka. tusaale ahaana dalka Latin America sanadkii 1985kii gaariga xamuulka ah qiyaastii waxay siisan jireen 93 kintaal oo bun ah, laakiin sanadkii 1990kii waxay siisan jireen 320 kintaal. bunkana waxaa la mid ah waxyaalaha inta badan ay beertaan dadyowga dunida saddexaad sida muuska. deyntana in la bixiyo iska daaye way sii korodhay oo dalalka soo koraya inay deynta bixiyaan warkeed daaye ma awoodaan inay bixiyaan dulsaarkeeda. tusaale ahaan sanadkii 1999kii guud ahaan adeegyada deynta ee dalalka soo koraya ay bixiyeen waxaa lagu qiyaasay 78 bilyan oo dollar.